gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaasi oo dhowrkii maalmood aynu ka soo gudubnay ku sugnaa magaalada Burco ayaa waraysi gaar ah siiyay TV-ga Universal. ugu horeyn waxa uu ka hadlay ujeedada safarkiisa ee gobolka Togdheer waxaana ugu baaqay bulshada degta gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle inay ka qayb qaataan qaadashada kaarka codbixiyaasha doorashooyinka ee la saadaalinayo inay ka dhacaan Somaliland horaanta sanadka 2017. marka hore waxaan mahadcelinayaa Universal TV shaqo hawleed u jooga magaalada Burco. shaqadan u jooga waxa weey awalan daldargelinta hawlaha xisbiga. meelaha inta waxa kamid ahaa booqday dhakhtarka weyn ee magaalada Burco. waxaan booqday sariimada xoolaha ka shaqeynay xafiisyada bariga Burco iyaga laftooda aadna loogu soo dhaweeyay. inta waxay nagu soo dhaw diiwaangelintii gobolka Sool iyo Buuhoodle baaqalkan uga dareeyaa dhammaan gobolada iyo degmooyinkaba diiwaangelintu ay bilaabmayso. marka dadkii kaarka qaadan ee aan markii hore diiwaangelin waxaan ku boorinayaa inay kaarka qaataan. Axmed Muumin Said ayaan wax ka weydiiyay wada hadallada bilowga ee u dhaxeeya xukuumadda Somaliland iyo madaxda maamulka Khaatumo ay ku jirto danta reer Somaliland ama qarannimada Somaliland aan wax u dhimaynin oo dadka walaalo ay ku wada hadlayaan ka xisbaan way soo dhaweyn. sidoo kale waxaan wax ka weydiiyay isku shaandhaynta uu xalay ku sameeyay madaxweynaha Somaliland golihiisa wasiirada waxaanu ku tilmaamay waajibaadkii shaqo uu gutay madaxweynuhu kulli waa awoodiisii madaxweynenimo inuu wasiirada badna bedelo badna marka taas waxaan u aragnaa in anagu kulli shaqadii ama mas'uuliyadii saaran madaxweynaha uu gutay. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi Axmed Muumin Said waan ugu dambeyntii wax ka weydiiyay arrinta ku saabsan saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka ee axsaabta siyaasadda Somaliland ay u gudbiyeen madaxweynaha Somaliland inuu go'aan ka gaaro ayaa ku jawaabay. madaxweynaha Somaliland wuxuu noo xisaaray saddex xisbi qarannahay inaan ka soo gaarno go'aan saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka saddexdeeda xisbi qaran ayaa ka dibadda nabadda iyo soosaf markaan dhinac walba ka eegnay arintaas xaggayga way nagu adkaatay saddex xisbi qaran baadan arinta aan madaxweynaha u dhiibnay aanu ku soo celinay waa arintii saami qaybsiga wixii isagu saami qaybsiga uu ka yiraahdo waanu ku taageernay waa go'aan isla gaanibay waanu ku taageernay marka reer Sool iyo Buuhoodle waxaan leeyahay cabashooyin badan baa jiray jaaniska maanta waxaan leeyahay ka faa'iideysta waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha reer Burco si mid iyo miisaan leh taageero badan ay siiyay aadna ii soo dhaweeyay. علي داير محمد بوس TV عالمي Universal Burco.